Kusoo dhawaada daawadayaal Somali Voice TV hadday tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe noo saar kuna soo dhawaada qodobada wararkeena u doorkaroon ee idin hayno maantana maxay tahay sababta ay taageerayaasha farmaajo guri ugu dhisayaan maalmihii la soo dhaafay ama maalmahani waxaa baraha bulshada ee ay Soomaalidu ku wada xiriirto si weyn looga hadalhayay guri la sheegay in si mutadawacnimo ah loogu dhisi doono madaxweynihii hore Soomaaliya madaxweyne Farmaajo kaasi oo looga dhisi doono meel ka mid ah dalka Soomaaliya gurigan oo ururinta dhaqaalaha ku baxaya dhismihiisa uu hadda socdo ayaa sababta loo dhisayo lagu sheegay mid loogu mahadcelinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo kamid ah guddiga ururinaya lacagta lagu dhisayo guriga ayaa siiyay waraysi laanta BBC-da kaasi oo ga hadlay sida loo maareyn doono dhaqaalaha loogu dhisayo madaxweynaha guriga oo ay shacabku ugu talagaleen walaal fikraddu waa fikrad ka timi bulshada Soomaaliyeed oo bilaabay olole ay ugu magac dareen mahadsanid madaxweyne fikradan oo ay bulshada Soomaaliyeed ku go'aansadeen inay ku hormuudaan bulshooyinka qaaradda Afrika oo markii koobaad ay tahay fikraddu in madaxweyne soo shaqeeyay oo xilka hadda ka degay lagu maamuuso sidii sharafta lahayd uu u ilaaliyay ammaanadii ummaddu ay u dhiibatay isagoo ugu adeegay si wadaniyad ah marka waxay go'aansadeen in madaxweynaha ay u mahadceliyaan sida ugu qurux badan ay goosteen inay ugu mahadceliyaanna waa in guri taariikhi ah loo dhiso madaxweynaha sagaalaad ee jamhuuriyadda oo isagu goor hore go'aansaday inuu dalka deganaado ka bacdi markii uu kowdii bishii 8 sanadkii 2018 dhalashadii Mareykanka uu haystay iska kansalay passport Soomaaliya ku shaqeeyay go'aansaday inuu dalkiisa joogo hadduu xil hayo iyo hadduu xilka ka degaba marka gurigu waa guri taariikhi ah ma aha guri caadi ah waa guri maamuus ah laakiin madaxweynuhu 5 sano uu xilka hayay wuxuu qaadanayay mushaar sidoo kale marka uu xilka ka degay kadibna madaxweyne walba waxa uu leeyahay gunno uu isaga bixiyo kirada guriga iyo waxyaabaha kale ee asaasiga ah ee u baahan yahay maxay tahay sababta uu ugu baahday in dadku ay lacag iska aruuriyaan oo ay guri ugu dhisaan baahi ma aha ka timi dhinaca madaxweynaha lacag iyo xisaabna kama hadlaynaa maamuus iyo sharaf iyo mahadnaq iyo abaalgud baan ka hadlaynaa waa taasta aan ku sharaxayo ee shacabka Soomaaliyeed iyagu ay ku go'aansadeen in ay madaxweynahooda u sameeyaan mahadnaq oo yiraahdaan mahadsanid madaxweyne kuna go'aan qaateen inay hawshaas ka bilaabaan inay madaxweynaha guri taariikhi ah u dhisaan ma aha baahi madaxweynuhu soo jeediyay laakiin madaxweynuhu wuxuu aqbalay fikradda wanaagsan ee aynu ku hormuudayno guud ahaanba shacabka qaaradda Afrika dad badan oo Soomaaliyeed oo arrintan ka hadla waxay leeyihiin maamulkii hore ee madaxtooyada joogay lacaga badan ayay lunsadeen marka sidaa daraadeed gurigan ay leeyihiin waan dhisaynaa waa boor isku qaris iyo raatirasho arrintaas maxaad uga jawaabaysaa runtii doodaasi dood jirta ma aha adiga un baan ka maqlayaa hadda sababtoo ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taariikhdiisa waa la yaqaanaa waa taariikh la dagaalan musuqmaasuq waa taariikhda uu ugu doodiyay muddada uu xilka hayay in hantida qaranka la ilaaliyo oo aad og tahay madaxtooyada muddadaas madaxweynuhu ka talinayay bayaan walba oo ka soo baxay inuu ahaa inaan la taaban karin hantida qaran ee jiilba uu jil u gudbinayo oo dhaxalka awoowe ah oo aan la taaban karin hadday dhul tahay dadaalkii loo galay inaan soo celino badeena murankii ka saarno iyo guushii aan ka gaadhnay waa nidaamkii ku shaqeynayay barnaamijka deyn cafinta waa nidaamkii ku shaqeynayay in mushaharaadka si joogto ah loo bixiyo ciidan iyo shibilba marka waa nidaamkaas aad iyo aadka uga fogaa arrimahaas aad hadda ka dhawaajinayso madaxweynuhu si nadiif uu soo shaqeeyay si nadiifana xilka uu uga degay run ahaantii taas ayaana shacabka Soomaaliyeed iyagoo ka abaalgudaya ay hadda ololahan u bilaabeen waayahay Soomaaliya sida aan ka warhayno waxaa ka jira sanadkan abaaro aad u xooggan oo ay la dhiban yihiin dadku marka guddigiinnan maxay tahay sababta aad dhaqaale ugu aruurinaysaan madaxweyne dhaqaale ahaan ka ron dadka maatada ah guryana dhisan kara
maad garab istaagtaan dadka rayidka ah ee ay abaartu saamaysay run ahaantii dee sidaan kuu sheegay baa ololahan waa olole bulshadu ay bilowday muhiimadooduna waxa weeye in ay ku muujiyaan sidii ay u garab taagan yihiin hogaamiyahaas ku soo shaqeeyey muddadii uu shaqaynayey ilaalinta iyo xifdinta ammaanada arrinta abaaraha madaxweynuhu dee waa kii ka soo shaqeeyey isagu barnaamijkan keenay ku dhawaaqay in masiibo qaran ay tahay xukuumadda amarka ku siiyey in arrintan ay ka shaqayso waa kii xitaa mushaharkiisii gaarka ahaa dhowr bilood u gooyey oo u qoondeeyey sidii arrintaas abaaraha loogu bixin lahaa haddana mar walba arrintaas uu barbar taagan yahay